kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal lahaantiba meel kasta oo naga daawanaysaan barnaamijka toddobaadkan waxaa marti inuu ah abwaan Cadnaan Maxamed Axmed oo loo yaqaano ama aad u taqaanaan qabyo tire marka ugu horeysa Cadnaan waan kugu soo dhaweynaa barnaamijka bismillaahir rahmaanir rahiim aan ku dhawahay barnaamijka True Cable iyo bahda True Cable aad u mahadsan sida igu soo dhaweeyaan sidoo kale sagal aad baad mahadsantahay anaguna aad baan kaaga mahadcelinaa sidaas ugu horeyn intaan gudagulin barnaamijka Cadnaan waxaad nooga warbixisaa Cadnaan waa kuma taariikhdiisa taariikhdiisa si weyn inaan ka yaraqana wali toobka waan ka yaraan mulay magacaygu Cadnaan Maxamed Axmed waxaan ahay nin reer miyi aan ahay ku dhashay nin miyi ku dhashanahay miyina ku soo kacaamay dugsiga waxbarashada dhexe sare ilaa heer jaamacadeed magaalada Hargeysa ahay nin reer ogaan oo aan aho miyiga oogada ku dhashay deegaanka Farweyn oo la ku dhashay waa taqaan adna jaamacad iyo yaraantayda ayaan magaalada soo galay saasan waxaad cursama sooyan ma gabayo badan ugu horeyn abwaaniintu ama hal abuuradu ama waa hibo Ilaahay siiyo ama waa wax familygooda ama ka dhaxla adigu taadadku maxaan ku soo reen karnaa ma mid hal abuur adigu gooni u leedahay labadaba waa hibo labadaba aan waxaan u qabaa horta aragtida tirada kala saarista ma qaba labadaba hibaan u qaba waayo hadii ay hiddo tahay walaaladii baa jiro ehelkayga jiro intaas oo dhan way wada gabi lahayn hadayna hibahayn markaasi waa la heli karaa awgii hooyo kale inuu awgii hooyo gabiyo waan maqlay Allah naxariisto gabi jiray awgii aaboon noolna ilaa cimriga u daayay u gabiyay suugaantiisa anaba suugaan u leeyahay anaba gacanta ku hay markaasi heredity way tahay oo xagga loo eegano ka soo jeeda waana hibo aad markii kuugu horeysay ama gabigii kuugu horeysay aad dareentayna wax barnaamij xilmi ahayd waxay horta weligeyba anu waxaan jeclahay saa qaraamiga ayaan jeclahay dabha ayaan dhageysan jiray deetana marka matalan hees dhageysto kale ayaan is arki jiray ayaan isku arki jiray qof wax fudud baan u arki waxaan ba urin karay laakiin ma dareensaneen laakiin waqtigii 2016 ayaan isku arkay inaan wax urin karo qof wax urin kara adoo waan isku daday daw loo maray iyo cilmi uma lahayn oo cilmi badan oo wax xisaab suugaanta marka la joogo hibada curinimada marka la isku dayga marka laga kaaday waa cilmi kale oo xisaabta waliba ka balaaran markaas adoo suugaanteedii jaan qaaday isla wax may ka hadli kartaa ma wax bay matali kartaa meel baad soo istaagi kartaa dabayaaqadii 18 kun bixi intii 18 ka dambeysay ayaan u arkaa suugaanta hab qaado istaagtay oo wax lagu bedeli karo waxna lagu jaanqin karo marka maanta cursama mise gabay horta gabay iyo maansadu waa isla wada bad laakiin badaha suugaanta oo dhan godku doonaa ahaday waxa jira godad badan oo la hayo godad la isla yaqaan godad lagu muransan yahay inta lagu muransan yahay inta kaleba inta goday jirto suugaanteedu waan ka tirin karaa oo inta god oo dhan waa suugaan gabay geerar chiefta oo masafaha loo qaybiyo inta waan ka tiriyaan suugaantii xuduudo ugu xiran ma laha suugaanta Cadnaan ereyga suugaanta maxaa lagu micneeyaa suugaanta horta ereyga suugaanta waxa jira Soomaaliyeed wax erey deegaamad la yiraahdo kala duwanahay suugaanta horta waxa weyn suugaantu waa waxa xul waxaan u nahno wax meel la taabto ugu sareysa weeyaan suugaantu salahaan marka la haruurka aynu tunayno haadino aynu suugaan oran karnaa inta yara dixinka macaan ha sare laga saaro sida safeexa cuntada soorta noqonaysa suugaan la marka la dhulku markuu reeska iyo roobku sida fiican ugu doo qurux badan ugu doo dhulku aad u qurux badan yahay dhulka camdiisa soo arqoyin oo naxariis soo jilicsan marka la arko roobku qoyay oo bataa ayaa oranaysa waa suugaan marka roobku si fiican noo helo oo dhulku doog yeesho oo geedu qoyaan man ku soo baxo dhirtu maqasho ayaa la dhirtaasi waa dhalka suugaan bay leedahay marka waxa roob markuu intuu inaga da'o ama meel kale inaga durugsan ka da'o oo qayood yar qabow oo naxariis leh qabow inagu soo celinayo ayaa la yiraahdaa suugaan mar kalena waxa la yiraahdaa suugaan marka cuntadeena joogno suugadeen naqaan cuntada u samaysan soorta u samaysan suugadeen bariis ku darsanay baasada aynu sida fiican loo fahmi karayo inteena magaalada joogta ayna u suugaan oran karnaa marka murtida la joogana waa hadalka kiisa ugu macaan soorta ugu fiican ee suugaan oran karnaa
marka eri suugaantu fara badan yahay dhowr wax qayb badan buu kala baxaa adu isku soo koob oo suugaanta murtida marka la joogo af Soomaaliga waxa weeyaan waa qaybta maansada ay suugaan la isku dhahdo godka doontaa waxa jirta maanso aad curisay oo la yiraahdo farxad yeyda farxad yeyda waa maanso aan curiyay maansadu ma basi fogay waxa weeyaan tabayaqadii sanadkii naga tagay 2020 ama 2020 maasqa qisadeeduna anigu bay ugu saabsanayd marka waa maanso jacayl qofka markaad jeclaato farxad buu kugu abuuraya in badan buu farxad kugu abuuraya wax laga yaabaa inaad qof xiriir lahayn ama jacayl lahayn dadna farxad markuu qofku muddo badan kugu abuuro hadduu qofku sidii doonta ba dhacdo farxadii ka noqdo dawayna farxadii ku deysa farxadii ku deynaysa marka waa inaad markii hore halkii aad joogtay farxad ka hor aad joogtay waa inaad tala farxadiyada halkii hore ku noqota markaasi qisadeedu saas ah marka farxadiyada saas ku soo baxday maansada waxa la yiraahdaa waxay sida u dhacayso hadaan maansada inoo dul maro waxay tiraahdaa farxad yahay damurubay dayaan durbaanada garaac eelkayga daar rajada daciif ka digaan dignoolal damaca la jacaylkii damiiri naftayda dareen derbiyada cidlada inay soo dirseen durba ay ku nacay ruux ku dirnayd daalkan baajiyo soo dabaalo hoy degdeg iguma dilkaygu casuum ruux danaysigii durba uu tagay diiqaday daar ilmaday dareer ruux danaysigii durba uu tagay diiqaday daar ilmaday dareer danab iyo xanuun dacarti murtay dalqadayda aad ladhkooygu dareer qalbi hodilaac dirdirgeli ilmada lagu doori korkoo lagaa diga rogteen dunuuna cuu siciid mar labaad dib u dowga cidlada heesaa ka daar halkii hore ku noqee cidladii joogtay derbiyada cidladii halkii heesaa iska dhigayso isku ilowsay heesaa ka daar jacayl waa dumo xiriir waa dagmay qaraamiga haddeen derbuubada garaa laxanada dirsooc soo dareeri baro waan dayoobeeyey aafeed udubi degdegay raqiis nafta dabar xidhkeed ku ducayso of in doloon baryada inuu eeba duro degdeg kugu qoro dunida gebigeeda eeba kaa dhex saar way jacaylkii waay maxaad meesha qabanaysa noloshu mina jacayl markale xitaa may kolka hadduu isku dayo marka dambe quus bu istaagaya marka inaad meeshii ka tagta waa fiican shaqadaad imika joogta haddii aad fahmi weydo guriga hadduu diiqad kugu noqdo meesha goobta wax ka baraysa haddaad qaban weydo waa gebigeeda aad doorataa in meel kale ka duwan marka noloshana meel kastoo la joogo jacaylka ma armaso waa in markaa gebigeeda baynu ka dhex tagno aynu ka dhex baxno weeyaan ishqigii darnaa kaa dooni beri inaad wada degtaan uu ku dooriyo uu ku daayey iska daariyaa malabkii dixdiyo doocaan aha iska daaday uu daba rumeeyey catooyada haddii aad dabii dawo aad ka heli calaacalka inaad haddii calaacalku dawo kuu noqonayo ood ku dawoweyso inaad daysa maa in qofka loo diimayno waa in qofka iska calaacalaa iska ooya suu hadduu ku nafisaya dawo ka helayo marka catooyada haddii aad dabiib dawo aad ka heli xigta ma leh dareen mana doorto ruuxiis dabeecadiina ku doonayo demiciisu jeer ugu duugay laab qofka haddii aad matalan imika haddaynu inagu wax isku nahay dabadeen in wax isku nahay oo isjeclaano hadduu laakiin jacaylkaasi naga dhammaado ixtiraamaysa wax isku hanshahin waxa weyne meesha markii hore isku keenhay qofka kale wax isku nahay adiga kaasoo dhawey jacayl buu marka wuxuu xigta ma leh dareen mana doorto ruuxiis dabeecadiina ku doonayo demiciisu jeer ugu duugay laab u dunuun balbeer ku dul ooy bal qalbiga kuba daweynahayn ilmadaada da'dana kuba diirsan kara u dulowba ruux kugu sii degtiya midku dooxi raba tala waa duruus diwaan jirta ifkay dib bayaan abi mid dambe run iyo daacadiya ku sir dib oo dambaysa qof yaan u aamin dib oo dambaysa qof daacad dambe iyo hebel waa daacadna ku waxaas ka baxa ayaa laga maqlay tala waa duruus diwaan jirta ifkay dib bayaan abi mid dambe run iyo daacadiya ku sirin ugu sii dambayn tix dareen lahayd gabagaba ku doog dareenkeedu yiri haddaan lagu danayn dadba ku naxayn awood dulucdagee dadka wada habaar kaba dayri duni dambaskeedaash in dabaysho harto ducadaada mari dadka wada habaar ka dhex bax dunida oo dad ka baxda waa inaad cidi ka dambaysan ma doonayso meeshaad ka tagta dadka kalena ka tagaan macaankeeda in dunida uu garan dadka wada habaar kaba dayri duni dambaskeedaash in dabaysho harto ducadaada mari daad baan dhex galay duni wada mashquul dulmiyo ka jiray murtiyahay baldood murti waa inuu ku doodaa suugaanta qofku in aniga imika wax laga yaabo maansada tirinayo intaasoo qof baa ku nafisaya ugu dhageysanaya laakiin marka ugu horeysa ku nafisa markaan tiriyey ilaa markaan akhriyay ilaa markaan ku akhriyay ilaa cidii aanu tirin markaan gaarsiin cidda ku nafisa waa aniga
marka qofka ugu horeysay maansada wax u tartaa waa aniga imika tusaale haddii bulshada aafooyin dagaal ama aafooyin qabiil ama aafooyin waxaan ka hadlayo cid ugu horeysa ku nafisa waa aniga waayo xil isaarnaa baan ku gutay cid ugu horeysa xilkay markaan maansay tiri xil baan bartaas ka dhigay aniga hawshayda dhankayga waan ka soo baxay daad baan dhex galay duni wada mashquul dulmi uu ka jiray murti yahay baldood qareenkaaga diro xukunkaaga daar leebkaaga diib dadajina falkii dhacdo dalab lahood duufaano baas dunuub iyo xanuun cudur duulka tiro dowladaha jabsoob dumarada hablaha doobka iyo wadaad inta doorgalka dadba wada dhammaan digadooda hara soo daa darkeed nagu dabaylaha masiib nagu harqi dabkoo ruuxnayuuna didin ruuxnayuuna bartaa ka bixin halla wada qabo haddaan dunida ka baxay halla wada qabo haddii jacaylan waaye halla wada waayo haddii laakiin imika inaan helay ma dooni waan ka wada baxay marka in kasoo wada baxa maase farxadii ay halkaas inagu joogaysa horta qofka haddii aad maansadii u yar dirto aad u dirto suugaanta waxa ugu badan ee la isticmaalo waa sarbeebta wax la isticmaalo suugaantu kuma wacno qofka inaad si fiican ugu geyso waa dee ilaahay baa kugu eegayo ilaahay baa isagana siiyey hadduu isagoo degabyahay uu kusoo gebi lahaa markaa u dirto laakiin sarbeebtu waxay wanaajinaysaa markaad maansadii aanan u maanso ku tiriyo haddii maansadii xun tahay oon kuusoo diro waa ku digasho oon kugu deenaya markaas qofkii hadduuna uuna gebi karin uu kuu gebi lahaa uu kaa jirin lahay inaad si toos ugu dirta maaha laakiin qofku wixii idinka dhexeeyey wixii uu ogyahay xiriirkii wuu ogyahay dee wuu ogyahay way isagii gaaraysa sarbeebtii isaha qof bilaadan oo Soomaali u fahmaya qofkii si fiican fahmaya laakiin dee dambi baa naga soo raacay ilaahay baa noo qabsanaya haddaynu qofkii si toos ugu dirno marka kolley inay gaadhay waan jeclahay maanta markii aad gaadhay waxaad u dirtay matana hadday gaadho kala dee sidii أول بعادي هاد بكوجو سعني هذا كل هذا ما صدق كل تولا ما كان سكولا برنا أمريكا تعال كينو واحد كده بلا حساب تعال كينو كده تعال كينو أسي وروسي راجع سوشيال ميديا يلا مركب وانكا بيجي هراء واحد شرتي قف كائنات قف مرس برتين قف كاس تعلاتان تاني مدب قف كام أركز قف كحسيس ما أنت هاتين إنه سرقنا برينا سرقنا ساعات مس حسي وخارج مانه لكن ما أنت هاتين سرقنا لابلود كبعي سرقنا سيد حسيه اللي يقولوا براو عصبيه وسيت شوقيه ركنده وسيت عنانه لكن لبدي قف markii maanta arka spartan ay brit hore kulmaysaa dama kulmaan video call ugu kulmaysaa warana isku soo diro xiisigu ka gudbay mid dhan kale waxaad arkaysaa inta soo qof oo qofkii ka fiican ka dabeecad fiican ka physical ahaan iyo jir ahaan ka qurux badan oo jeclaysanayso oo kugu xirmaya jira marka waxa jira si waageera technology-da jira inaad qof ka qurux badan bayna arki weydaba waayo social media ku soo gaarsiinaysa ma jirin qofkaasi markaas in badan bad haysanaysa marka waxa jacaylkeena inta badan burburiya hawa social media marka qofkii marka hore la isbarta meelaha iska baranaya hadii aan la isbarano meel Instagram ki Facebook WhatsApp marka kulli deegaanada inta ugu badan wax xogteen dadku la wadaagnana inaha sumin noqoto marka university TV-yada inta madax banaan laga yimaado continue waa intaas qofkii inuu arkiban jecel aad waa tahay adnaano ma jirta awaan aad istiraahid awaankaas oo kala wayna maasuunkaaga noqdaan ama heerkiisa aad gaadha awaanadeena waaweyn iyo horta awaanadeena waaweyn iyo kuwan dambe lodad badan baa jira lodkii sayidkii iyo Ismaaciil Mariyo lod badan halkaas soo gaaray baa jira lod kale hadana afqalooc iyo hadraawi iyo gaariye iyo lawn xariste Cabdiqays iyo Xasan Gani iyo lodka hadana soo taxan Axmed Salaaman lodka soo taxan baa jira lod kale hadana ka soo bilaabma jiro danan leeg oo kasi yar oo ka soo bilaabmayo Xasan Dhuxul Weersabe ragga la midka ka soo bilaabmay la yaqaano ayaa jira anu ma jiro qof si khaas ah ugu daydo waxyaabo waxay kala duwan bariga hore qof wax laga yaabaa reer miyiga isku ahaan cilmigeena iyo fikradana barnaamijna jira aad saxaafadda markaad ku shaqeynayso halkan adigu soo martay qaatay ma jirin meel lagu barto way hadii jirtana way yarad lagu baxay caafimaadka kala saas dabeetana intaan inta soo mihnadood baan mar waxaan doonayaa macallin noqdo macallin baan noqonayaa mar dhakhtar baan cilmi dhakhtarkaan baranaya mar suugaanta marka qof aan si toos ugu daydaa ma jirto suugaantuna waa mowduuc gaar ah shakhsiyadeena ha
meeda waad dhegeysanaysaa intaasoo hal abuur waxay ka hadlayaan mawduucii ka hadlayaan mid kastaala mawduucii aad u qirtay waad ku taageeraysaa waad u qiraysaa laakiin hal abuur aan isleeyahay kaasaad aad ku dayanaysaa aad ku daba taagan tahay ma jiro suugaantuna dee maaha qof looguma dayan karayo waa ruul iyo xisaab iyo cilmi qorano badweyne cilmigaasi markaad sideeda u dhex taagan tahay cid ka doyasho lagama baahna laakiin shakhsiyadda waxaa jira intaasoo hal abuur oo qiimo agteeda kule oo qadarin kule hore ka mid yahay gaariya ka mid yahay xasan gani ka mid yahay oon dee dhegeyso suugaantooda qiimo weyn ay samaynayso laakiin qofkan sidiisa bartilmaameed ma jiro suugaantaadu maadaama aad ogaantaho bulshada wuxuu soo gudbinay sidoo bulshada ku daawanayso maxay u badan yahay ama maxaad jeceshay inaad bulshada usoo mar walba la wadaagtid horta aniyo waxaa jirta hal abuurada in hab system u maraan tusaale ahaan jacaylkoo kale ay ku bataan laakiin iminka dee jacayl waxba inooma tarayo deegaan ahaan waxba inooma tarayo wax ka badan baa jira wacyigelin caafimaad baa jirta tu qabiileed baa jirta tu dagaaleed baa jirta tu ti caafimaadkeenu u baahanaa jirta markaasi oo wax badan laga hadlaa jira suugaanteedu way fara badan tahay jacaylka intaasoo mawduuc baan leeyahay maanse tii aabaha waan leeyahay tii walaasha waan leeyahay tii hooyada waan leeyahay tii waxbarashadii gubaabinta waan leeyahay tii nafla hadalka hooyadii ka jacaylka intaasoo mawduucay leeyihiin waan leeyahay kii nabadaynta iyo deegaanka waan leeyahay tii wadaniyadda waan leeyahay marka waxaan isku dayaa inaan mawduuc kasta ka dhex muuqdo oo mawduuc kasta bulshada kana anfaco meel kasta mawduucaan ka dablo waxaa jirta maaso kale la yidhaahdo haysoo warwari haysoo warwari maasadaas iyo imika niyo haddii aad imika waxaan kaa dalbo waxaan kusoo bido oo wixii ii diido laakiin markaan kaa tago haddii aan qiimo agtaada ka yeesho waxaan haystaa in qiimo inooma yeelanayo tusaale ahaan mobilka maan imika haystaa waan haystaa laakiin maanta waan haystaa mihnad weyn saasa iguma sii laha laakiin imika hadduu iga jabo ama imika laiga hada ma kaga lumo qiimo weyn buu ku yeelan markaa mobil doondoona ma joogi karayo ilaa mobil helo markaas qofkii haddii aan adigaan ku haysto oo adigu ila joogto imika mar dee imika qiimo weyn inaan isayn baa laga yaaba qofka already wixii waan haysta caafimaadka markaynu inagu caafimaad baan haysano kutaabnaan ku soconna markaynu imika haysano qiimihiisa ma dareemo laakiin markaynu weyno xanuun nala kuma weynu dareemnaa ilaahay usoo noqono sidoo kale amni maynu haysanaa qarannimadeena iyo somalilanteena sidoo kale amnigaynu haysano haddii uu naga tago haddaynu weyno imika qiimihiisa ma dareemo amniga وانا اسكاها ولا واحد من اسكنها حلقه دونين واحد من اسكنها لكن هذه منه وندريمنا قيمه قفكي marka uu ku haysto hadu qiimaha dareemi waayo markuu ka tago inaad u ururto ma waayo markaas hayst markaas wax ka qabasho markaas dareemi la ima tusaalaha aragna dhalinyar yar fara badan oo tahriibta oo dalka ka baxdayna aragna inta badan markaan halkan joognay ilmaha yar lama taliyo dugsigu ka cabanaya ma jaamacadu ka cabanaya waxbarashadu ka cabanaya ma magaaladu ka cabanaya ma xanuun nafsiyeena ayuu dareemaya laakiin markuu halkaa uu tahriib wadan ka baxo ilaa intaasoo kan soo diray mar walba isagoo jirkiisa la dilayo in nolol soo soo nolol soo aynu qiimihiisa karana qofkiisa qofka nolol noolyahay qiimihiisa ma karana waxaanu garanaa intaasoo qof oo qiimeeyno la halgamayaale abwaano culimo la hooyo aabal markay joogaan ma sharafno ma maamusno laakiin markii inaga dhintaan aynu dareemno marka qofka markaan uu jeclaa idreemi waayay markaan ka tagay inuu iisoo ururo maaha saasi ma soo wadan markaas ma soo laftirkeeda tan aanu ugu saabsantahay ka qofkii iga tagay qofkii aan ka tagay haddii waxba qabo waayay isaga dartii baan habliga wada haray waxba u jeclaan waayay waxba qabsan waxba garan waayay noloshayda isu soo istaagtay iyadoo saasoo dhan markii aan joogo haddii aan imika aanu isbarqabtoon ka tegay inuu iisoo ururo maaha marka qofkii aad aragto haddana qofkii weli kusoo bashkaraynayo oo wax kaaga imanayaan feedback weli inuu ku jar darayna aad aragto waa iisoo ururinaysa ka tegay adiya waa haysoo ururin markaa maasada saas ku bilaabmaysaa maasada laftirkeedu cusub tahay oo hore cid hore ila wadaagay waxaa jira bandhig suugaan habeen dhigtooda imika laba habeen ka hor aan magaalada ku qabtay inuun soo bixin baa laga yaaba taasi unbay ku jirtay hore oo suugaanta u cusbay u dambeysay waayada marka waxay tiraa kalgacaylku wari igu weel nafan warba iiga qabin ina waabin rabta weydoobi hadda wasladaha jirka iyo wejigaygu noqay fool waayay rajo wacadii banay igu tuur war dheer daryeel waayo ruux waalin sii wadooyinka dhexdooda ku wareegtay naftu waqalkii rajadu wuxuu raad wado laga waabin karay weydaarta xadka oo waa fogaan
hadda waan fogaado rajadii xadkii wixii oo dhan waan dhaafay waa ka baxay marka ruuxdii wadee warsanii ahayd waxay tidhi haddani iga weeco oo warba iima qabto rabbi yaa waduud waaxyihii baneeye waafiyuhu istaag taladeedu waa waarkii xubiga inaan wadha sarir talada ugu weynaan imika hayna keliya ta waa inaan dhakhtar tago dhakhtarkii jacaylka oon sariir dhigto barta iska joogo halkaa lagu daway si kale ma laha soo noqosho iyo xadkii waan ka baxo iyada xadkii waan dhaafay marka talada ugu weynaan hayna waxa weeyaan imikana dhakhtar gallo dhakhtar jacaylaan dhisno dowladda laftirkeega inaynu ka cabsanayna inoo ansixiiso inoo dhisto waarkii xubiga inaan wadha sarire xarbi weerar iyo wadaadada tuftood dantu igu wado weeshada abkood waardiyaha dhammaan waardiyaha dhammaan weriyaha jacayl waxa aan ku warqadayda dira una geeya wadna waa hore inacay adiga laftarkaa weriyaa tusuma imika laftirkeeda weriya jacayl waa inaad gudbiso halkaas waardiyaha dhammaan weriyaha jacayl waxa aan ku warqadayda dira una geeya wadna waa hore inacay waxa aad tidhaan wacantii hablaha wadnihii baqlee ee aada waraabin jirtay wuu go-ay haddoo wuu yaqmay nolol wuu waliilmayaa wuu walaacaya walbahaaraya waafiyaha bannaan waxaad hayd horaan waalid iga warwara iga tabsho warkee waad i tuurtashow sidaa tahay walaal weecaansiga wax tariyaho wehelbaan tabaa webiyada durdura waadiga cidlada ku dhex wiiqmayo wadka waan sugaa weerarkiisa iman ee laga wadboqo waana doonayaa waana adi dartaa iyo weecadka inaan dhinto oo wadkii helo oon meesha ka baxo ayaan doonayaa sababta ugu weynna waa adiga waa inaad adiga tagtay oo adiga weecatay iyo weecadkaa waqla iyo dhirtaan shimbiraha warshaa waraaqaan qoraa waxaan sugi jawaab way wadnaha walaaqmayo waabay jirkii walalo u go-ay wadartii dadkii bulshadii wacnayd ruux kula wanaag kaba waaya adi dadkii oo dhan ruuxdii kula wanaag waan ka waayay wadartii dadkii bulshadii wacnayd ruux kula wanaag kaba waaya adi tahli waaye weedh ruux ugu waramo xanuunsaday walaala xaalkaygu waa waalalowga silic oomiyuhuna waa waxay la ogeyn oo way la tahay ina aan u wado wigle iyo ciyaar inaan la ciyaarayo kaftaniga tahay mooyaan dadku weedhuhu yidhi waayeelku gebi kama maqla warkaa waxaan doonayaa dawo ii wacnayd iwanaajinahayd warkeed inaan hele waan waaye ase waxa ii cad waa walacsiga lurkiiyo dhaqankii wacnaa ee weheshan jiray samir ima wadee wadka waan sugaa waxse dantu i tidhi iska waalo hadda waan tegey haysoo warwari waa tahay aada iyo aad weli daawadayaal waxaan kaga jirnaa barnaamijkii dhaqanka iyo suugaanta cadnaanow dhaqanka xagga dhaqanka markaan u baadhno say isku tihiin dhaqanka horta dhaqanta imika dhaqanka ira qeexitaan oo si saxa looma hayo dhaqanka waa wixii macnaha saxda loo hayaa akademiyad marka loo eego sida aniga la tahay waxa weeyaan aan ku qanacsanay wixii soo jiri jiray in la sii hayo suma wixii soo jiri jiray mana horta maanta weynin marka wixii soo jiri horta qaybteeda waan hayaa qaybteeda waan iska hayaa dharkaygu noo kayga waaweyn waa iska arkas dhar waaweyn baan jiray suma laakiin bulshada ama dhalinyarada imika dhaqankooda iyagu aan sidaa usii kala garanaynin ka caawisaan hayo horta ereygu wuxuu ku fiican yahay erey soomaaliga saxda barax tirnaa miyigu ku dambeeya qofka si kale oo loo bari karaa ma jirto oo intaas soo mawduuc oo asxaabtiisii le oo gurigii le oo tvgii le ayaa mawduucyo kale laga soo daynaya dadkii waxaad baraysaa tusaale imika dad dugsi xiisad ka bixi waa secretary amba heer jaamacadeed dad ka bixi wax yaroo simbal oo fudud ayaan dadka kula fahmin oo qofkii heer jaamacadeed amba secretary marig oo inaad u sharaxdo intaas oo ereyga la macno waxaas la dhahaa ereyga xataa mararka qaar waxa ku qasbaan in English ama Carabi wax kale aad ereyga aad ugu tusaaleyso marka afkii marka la joogo hadiyana akademiyad cilmiya ama buwaagta naxwaha qaamuuska Soomaaliga aan la badin oo la baahin dugsiyada lagu dhigin wax jahan go'aan oo dawladdu xil iska saaran ma jirto habkii afkii loo saahin karayo ereyga Soomaaliga waxaan aniga saaciday aniga
inta badan aan ku faraxsanaysaa waxa weeye inaan miyi kusoo koro intaas uun bay tahay laakiin hab kaloo dadka loo caawin karaya ma jirto haddii dad waxaa jira dad aan weligood miyi tegin oo ilaa kuwii horena lahaadeen kuwan iminka lahaadeen oo magaalada jooga laakiin si fiican ugu baraarugsan dee dhibta jirta oo bartay iyagu ood ka badinin oo si fiican adiga macallin ku noqon karaya laakiin dadkeenan iminka teknolojiyadiina way nasaxaad kusii jirtaa magaaladiina way jirtaa markaasi waxay habka ugu badan qofka waxa weeye ilmuhu markuu yaryahay in miyiga fasaxyada loo saari karo taasuuman ku talin lahaa ama in dawladdu dee academy soo saarto oo u xil saaran marka laakiin aniga marka aniga la joogo alxamdulilah wallahi aad kuwa ugu fiican baan ku jiraa malaha aad iyo عدنان أدبن كاجا محلنا وقت قالي قاعد نسيسي برامج كواحد لسه عسين سنة وأسجل محمد فحالي لنا كمرض مصطفى حسن إن ضمانت هذا إنك بهذا ترو كيبل وحنا تجينا في أمان الله.